munaasabad ballaaran oo saaka ka dhacday hoolka jaamacadda Nugaal University qaybta shareecada. Munaasabadan oo ay jaamacaddu u qabatay 42 arday iyagu ka qalin jabiyay kulliyadaha businesska iyo computer science. Waxaa ka soo qayb galay gudoomiyayaasha jaamacadaha, gudoomiyaha jaamacadda BSU ee Garowe Maxamuud Sheekh Xamuud. Sidoo kale waxaa xafladaas iyaguna ka soo qayb galay gudoomiyaha jaamacadda Burco Ismaaciil Caraale oo iyagu dhamaantood gudoomiyaashaasi ka hadlay. Waxaa ka hadlay gudoomiyaha jaamacadda Nugaal University Professor Cabdirasaaq Lafoole, waxaana ka mid ahaa mas'uuliyiinta halkaasi ka hadlay hadaladooda sida tan. ardayda qalin jabinaysa labada guruuba hore ay sijiido in ay jaamacadda u soo gelisay database laga soo bilaabo ardayga marka uu aqoon-gareynaya jaamacadda ilaa iyo maalinta uu qalin jabinayo maadooyinka imtixaanka uu galay iyo maxaan ku rahay macalinkiisa iyo sawirkiisa inuu jiro database jaamacaddu ay leedahay oo ardayda qalin jabinaysa oo sanad difacadii labaad oo computer science oo iminkeedu hor fadhida ay arrinkaas soo gelisay aan dhihi karayo waa barnaamij haddii la garan lahaa maanta aan ka yarayn 300 kun iyo wixii ka sareeya duubta haddii ay loo saamado oo ay waqti ku helo oo fiir qalbiga kaasna waa isku daynaa haddii kale waxaan rabaa in aan ku soo koobo jaamacadii uga faa'iideeyay programkaasina uu diyaariyay jaamacadda Nugaal sameyn sida la saacado ahay iyo maanta sida ay xagga aqoon laba arrimood ku jirto wax soo saarkii ay jaamacadda lahayn oo ka barsaacay ka waramay oo wax la taaban karo waxa dadka siyaasaddu ay ka waramaan maaha waxa dadka ganacsigu ay ka waramaan maaha waxyaabaha la taaban karin bay ka shaqeeyaan sida xaqooda laakiin jaamacaddu waxay ka waramaan wax la taaban karo wax tactical oo concrete oo bulshadu ay dareemi karto ay ka waramaan oo ku mashquulaan sababaha dadkooda sababaha ay u mudanyihiin in runtii lagu garabgalo hawsha adiga ay ku jiraan xiliyana waxa uu ka faa'iidayo baahiyo ku jiraan ma jiraan in wax kaga isaga uga biiraan mooyee naf iyo maal ula dhextaagin waa waxaanu taaban karno halkan in wax soo saarkii jaamacadda Nugaal jaamacadaha oo dhan example ah iminka maantadan aynu fadhino aynu saalo soo qaadan karo inaynu taaban karno Soomaaliya jaamacaddii ugu horeysay ay noqoto Nugaal University haddana waxaan u weleeyay xafladda ka soo qaybgalideeda inaanu nimaadno waanu isla ku soo qaadnay waqti occasion oo gudoomiyuhu wuxuu nagu soo aadiyay anagoo walba imaan lahayd waqti munaasabada oo si waxay u cadiyeen ay muuqato ayuu nagu soo aadiyey hadeer waxaa loo ogolaaday dhammaan jaamacadaha istiqaafka dhan inay master ku samayn karaan inay PhD ku samayn karaan haddana way dhigtaaneen oo sanadkii dhawaato يعني سنالك شرعنا أرضي وحياة المسطرة سنة كانوا مهتمين وقالنا سنة إن شاء الله هنا كذا كل سيارة مهتمين. Sulaiman, I am one of the students of Nugaal University, Faculty of Business Administration in second year. So that may I take this golden opportunity in this great day to welcome to you to the secondary graduation ceremony of Nugaal University. Indeed, it's a day that we are all of us waiting for and occasionally was attending. It is a day that going to the history as one of the happiest moments of Nugaal University. So all are welcome. jaamacadda Nugaal qaybta computer science-ka waxaan jeclahay in aan oo aan ka gaaro ilaa iyo heerkii kan ka sameeya Soomaaliya waxaynu horumar ka gaarnay laba shay oo ah communication-ka iyo saxaafadda waxaynu nahay dadka dunida ugu horeeya dadkuna saaka way idin laaween aad baan u mahadsantahay. Abdikariin Nolol, Somali Channel TV, xarunta magaalada Laascaanood ee gobolka Sool.